Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waqti fog waxaa tuulo ku noolaa nin geed jira ah oo aad u hunguri badan. Sida caadada u ahayd, ninkan subaxdii ayuu gurigiisa kasoo bixi jiray, wuxuuna ku laaban jiray isagoo alwaaxyo badan jaray, wuuna gadan jiray. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii soo aaday dhankii keynta si uu alwaaxyo uga jarto, balse intii uu jidka kusoo jiray, ninkii wuxuu arkay haweeney dhulka taala. Ninkii ayaana markii uu arkay haweeneyda aad ula dhacay quruxdeeda. Yaa dilay haweeneydan quruxda badan, waa inaan booliska u sheego arrintan. Kadibna ninkii indhihiisu waxay qabteen dahab ay xirneyd haweeneydii dhulka taalay. Ninkii hunguriga badnaa ayaa qalbigiisa xumaaday. Waxay xiran tahay dahab, waa inaan ka siibtaa dahabka. Ninkii ayaana wuxuu isku dayay inuu ka siibto haweeneydii dahabka, balse wuu ku guuldareystay. Muxuu u bixi waayay dahabku? Maxaan sameeyaa hadda? Kadibna ninkii ayaa labada gacmood ee haweeneyda ku jaray faaskii uu watay, wuxuuna la cararay dahabkii. Markii uu gurigiisa tagay ayuu isla markiiba xaaskiisa siiyay dahabkii. Xaaskiisuna aad bay ugu faraxday helitaanka dahabka. Laakiin habeenkii ayay naagtii ruuxaanta ahayd kusoo kacday koomadii ay ku jirtay. Dhanka kale ninkii xaaskiisii ayaa seexday, balse qof ayaa bilaabay inuu albaabka gurigooda garaaco. Yaa soo garaacaya saqda dhexe albaabka. Ninkii ayaa istaagay si uu u furo albaabka. Markii uu furay albaabka, wuxuu arkay haweeney taagan albaabka. Haweeneydii waxay isku duubtay maro cad. Yaa tahay adigu? Maxaad saalkan u joogtaa? Yaad se doonaysaa inaad la kulanto? Waxaan ka imid tuulo dariskeena ah, waxaana raadinayaa xoolo iga lumay. Haye, laakiin bannaanka ka soo xarood. Sidoo kale ma fiicna wareegidda habeenkii. Soo gal guriga oo nala huya caawa. Haweeneydii waxay gashay guriga. Yaa weeye qofka aad waqtigan dambe soo gelisay guriga? Anigu ma dareemayo wax wanaagsan. Haweeneydii waxay fadhiisatay sariir banaaneed. Si lama filaan ah, maradeedii caddaanka ahayd ayaa isu beddeshay mid casaan ah. Ninkii iyo xaaskiisii ayaana istaagay iyagoo aad u argagaxsan, aadna ula yaaban waxa dhacay. Marwo, ma dhaawacan tahay? Maxaa weeye dhiigga kaa socda? Eeg maradaada, waxaa ku yaala dhiig. Waxayna u muuqataa in wax kaa khaldan yihiin. Amba waa ujeedaa, waxaan u maleynayaa inay dhaawacan tahay, waa inaan caawinaa. Kadibna ninkii ayaa ka qaaday marada naagtii ruuxaanta ahayd si uu u nadiifiyo dhaawaceeda. Wuxuuna arkay labada gacmood oo la jaray naagtii ruuxaanta ahayd. Ninkii iyo naagtiisuna way argagaxeen markay arkeen. Anigoo suuxsan ayaa labada gacmood la jaray. Maxaa dhacay? Halkee baa lagaga jaray labada gacmood? Ma garanayo, laakiin qof ayaa gacmahayga iga jaray si uu u qaato dahabka gacmahayga ku jira. Markaas ayuu ninkii aad u baqay oo argagaxay. Tani waa naagtii aan gacmaha ka jaray, waxaan uga jaray keynta dhexdeeda, laakiin iyadu waxay iila ekayd mid dhimatay. Sidee bay kusoo toostay? Maxaa dhici doona hadda? Naagtii ruuxaanta ahayd ayaa indhaheedu qabteen gacmaha xaaskii ninkii. Kani waa dahabkaygii. Sidee baad ku heshay dahabkayga? Taasi waxay ka dhigan tahay adiga ayaa iga jaray gacmaha si aad u hesho dahabkayga. Hadda dahabkayga iisoo bixi. Haddii aad iisoo bixin weydana, waan isdagaali doonaa. Lagama yaabo inaan ku siiyo dahab. Markaas ayay haweeneydii isu beddeshay ruuxaan, waxayna bilowday inay ku qayliso, waxaad iga qaadatay dahabkayga. Lagama yaabo inaan nolol kugu sii daayo, waana ku dilayaa. Waxaana igu ballana inaan ku dilo oo aadan ii sii noolaan.